maxaad ka taqaanaa 8 gobol ee Soomaaliya ahaan jirtay? 1. Gobolka Waqooyi Galbeed xaruntiisu waxay ahayd magaalada Hargeysa waxaana magaalooyinkiisii ka mid ahaa Berbera, Buurama iyo Saylac. 2. Togdheer xaruntiisu waxay ahayd Burco waxaana magaalooyinkiisii ka mid ahaa Laascaanood iyo Cerigabo. 3. Gobolka Bari xaruntiisu waxay tahay Boosaaso. 4. Mudug waxaa laga xukumayay Galkacyo waxaana hoos tagayay Guraceel, Ceelbuur iyo Caabudwaaq. 5. Hiiraan waa sida hadda ay weli tahay. 6. Banaadir xaruntiisu waxay ahayd magaalada Muqdisho waxaana ka mid ahaa magaalooyinkiisa Marka, Wallanweyn iyo Jowhar. 7. Jubbada Sare oo ay xarunteedu tahay Baydhabo ayna ku jiraan gobollada hadda loo yaqaan Baay, Bakool iyo Gedo. 8. Jubbada Hoose oo ah labada jubbe ee hadda jirta xaruntooduna waxay ahayd magaalada Kismaayo. sidaas ayay ahaayeen 8 gobol ee Soomaaliya ka hor inta aan laga dhigin 18 gobol.